السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دولة الكسو دوادة متكمدة عشرة كساب سنة برشاد الغودة إنجليسية. عشر كمان توحو كساب سنة هاي present continuous tense جرهان question 4. أما حبك سؤالها أما حبك لسكو سؤاله مركي الاستعمال يا present continuous tense هروح وسوق هذا أسيو statement أما هذا العادة مركي وهلا iyo asigoo negative ah iminkan waxaan qaadan doonaa asigoo su'aal ah ama habka wax lagu weydiiyo markii la isticmaalayo tenniskan marka waxaan ahay waxa koow ah jumlada waxa koow galaya ama meesha ugu horeysa jumlada galaya auxiliary verb wax la yiraahdo ama ficil caawiyaal waxa ku xiga subject waxa ku xiga verbkii waxa ku sii xiga ing sidoo kale waxa ugu dambeeya object ama ficil lagu sameeyay marka auxiliary verb maxaa la jeednaa auxiliary verb waxa la jeednaa ama is ama are auxiliary verb waa badan laakiin tenniska markii la joogo saddexdan ayaa khuseeya sidoo kale waxaan u baahanahay subject wuxuu noqon karaa nouns magac ayuu noqon karaa pronouns ayuu noqon karaan ama magacyada ama waxay noqon karaan things oo ma aragtay ay noqon karaan ama places ama meelo iyo wixii la mid ah marka subject waxa dhahnay waa magac marka ama meelo ama ma aragtay magacyada ama wixii la mid ah ay noqon karaan marka verbka waxa noqon karaa marka verbka caadiga ah khaasatan verbka present ayaa ula jeednaa maahan mid ma aragtay past laakiin waxa ula jeednaa verb ama ficil dhacdo ma aragtay present waxa se raacaya ing sidoo kale marka waxa ugu dambeeya object waa isla subject oo kale marka waa pronouns ama nouns ama wixii lamid ah ama things ama places waxa marka ayda qaadanaysa am I walking now oo kale am I calling her am I talking to you? Am I watching a movie? Am I speaking loudly? Am I running fast? marka anta waxaan dhahnay marka ayda ayaa horgal u tahay markii la joogo su'aasha ama habka loo sameynayo su'aasha ficilka tenniskan am I walking now? Am I calling her? Am I talking to you? Am I watching a movie? Am I speaking loudly? Am I running fast? sidoo kale erayada ama ficilada singularka ama ficilada keliga aan iraade magacyada ayaan ula jeedaa cafwan ama personal nounska ama magacyada keliga sida asiga ayada oo maaragtay xayawaanada ama waxyaabaha aan noolaha aan ahayn loo isticmaalo waxay qaadanayaan marka is ayaa marka wuxuu u noqonayaa horgala marka see laughing iyada noqoslaysa is the baby drinking his bottle cunuga macabaya botolkiisa ama dhaladaysa waxa ku jira is he sitting or standing asiga ma fadhiya ama uu istaagan yahay is he leaving now iyada hadana baxaysa is she eating the meal iyada mahanaysa cuntada is it running on the bird xayawaanka ayaa loola jeeda marka ku ordaya baarkiga marka iyana waxa horgal u ah marka wax lagu bilaabo jumlada is ayaa lagu bilaabay markii la joogo tenniskan marka waxa sidoo kale aan haysanaa marka we iyo they iyo you waxay qaadanayaan are waxa dhahnay are they listening to the teacher ayaga ma dhageysanayaan macallimiinta are you going to work adiga shaqo miyaad u socotaa are you sleeping now adiga maaragtay ma seexanaysaa hadda are they watching football iyaga ma daawanayaan marka footballka marka casharkii halkan ayuu ku yahay dabcan waxaan dhahnay marka waxa ugu muhiimsan waa qaacidadan tusaalooyin badan waa la keeni karaa laakiin waxa ugu muhiimsan qaacidada inay haysatid oo ah
in ko uu galayo auxiliary verb-ka waxaa tilmaamaysaa falaartan maaragtay halkan buluuga ah sida waxaan ula jeednaa am iyo is iyo are sidoo kale subject marka waxaa dhahanaya wuxuu noqon karaa pronounska ama nounska ama things ama places wixii lamid ah waxaa kale ku xiga present oo verb-ka oo present ah waa ji raacisa iyo objectiga oo asiga magac ah